هل كاسن عن كحرنا وحي أهل حافظ اللي يراهدو حافظ اللي يراهدو شنغاري meel ku taalo oo lagu sameyn jiray maarta isku soo baxyada iyo muxuu ahay mudaharaadyada iyo cayaarsiiska ciidamada maalintaasaan jooga halkaa markaa waxaa ka dhadhasan kartaa dadka meeshaan jooga iyo anigu u kala da'weyna bay aad ka dhadhasan kartaa 1960 ninkii bartaas taagnaa oo dad muxuu ahay ciidankii meesha marayay soo dhaweynayo calanka la wareegayay ka mid ahaa muxuu ahay waad garanaysaan wax walba oo waqtigaas 60kii ka dambeeyey waa dhex taagnay ama dhibaataha la soo maray ama wanaagahoo la soo maray waa dhex taagnay marka waxaan doonaynaa ummaddan halkaan timid hadda oo soo qaxday oo dalkeedii soo burburay oo halkaan yimid dad badan baan meeshaan looga tegaya war dadka hadda aan af garanaya oo af Soomaaliya ku hadlaya waxa loo baahan yahay inay u turjumaan waxaan hadda ku hadlayno dadaan af Soomaaliga ba aqoon baa jira ee u yimid halkaan inay ogaadaan dalkoodu wuxuu yahay iyo dadkoodu wuxuu yihiin marka waxaan leenahay ilmaha waa keenteen maahan muusikada keliya maaha waxa weeyaan inaad muxuu ahay wacyigelin u samaysaan ilmihiin u samaysaan inay dal leeyihiin ay calan leeyihiin oo ay degaan leeyihiin inaad u sheegtaan taas baan idinka codsanaya waxaan kaloo rabaa inaan u duceeyno kulligeen dhammaanteen halkaan nabadgelyada dalkeenna ilaahay inuu soo dhaweeyo oo dhibta annaga isku hayna cid kale naguma hayso haddii aan annagu midowno oo aan isku tiirsanaano waxna wax naga tari kara male dawladaha xitaa nukleerka haystaa haddaan isku duubannahay nama soo dhex geli karaan laakiin markaan anagu tafaraaruq aan samayno waxa way noqonaysaa in lagu soo dhex galo hadda meeshaan aan joogno waa inaan anagu u midownaa inaan danaheedna u midownaa halkaan waa ku kala daadsannahay halkaan waad ogtihiin waxaa carruur la xidhay waad ogtihiin waxaa xabsiyada ku jira waad ogtihiin waxaa daqaaqufay oon waxba baranayn waa ogtihiin waxa dhaqan celin u baahan waa ogtihiin intaasoo dhan waa ogtihiin waxaanay ku xidhan tahay annaga oo midowna oo aanaan fiirin gobol hebel iyo qabiil hebel weeye annagoo nidhaahdo war saddexdaas laxumaanna hoggaaminaysa aan nidhaahdo ayaa danahayna aan ka fushan karnaa dalkaan aan la joogno dadkii naga soo horreeyey dhibaatana way soo mareen hadda ku jirno laakiin waxay ka gudbeen markay midoobeen oy amareel noqdeen ayay ka gudbeen waxaan idin rajaynayaa inaan garanno danaheenna muxuu ahay markaan danaheenna garanno dalkaan aan la joogno oo aan la dhaqanno ayaa waxaan keeni karnaa inaan dalkeenniina anfacno oo aan muxuu ahay aan wax ku tarno marka faataxadaad u maraysaan dalkii weli dhiiggii waa daadanaya ilaahay dhiigga soo ay muxuu ahay ay ka tanaasulaan waxyaabaha ay ku jiraan oo muxuu ahay intaasaan kusoo dhammaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلنا العبد حسين آدي آدم مهسين هاي حتى لو حنكسر دوينا يا جراد علي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت جراد علي اللي مير هذا ما عايق عليا لكن تسو جراد مير يا جراد كده ما بس كله فاسوا أنت مدة لبعض إلهي لبطل وتيرو هنا توسي إلهي لبطل وتيرو هنا توسي إلهي لبطل وتيرو هنا توسي هل كان واحد كان بلينا جالية دمشيستر ومدة ما أنت ماشي سوتي من قبلها حوش عن جاي ninka la yiraahdo saxaabay oo meel walba u taagan Soomaalida haday xaga yaareed tahay haday xaga wadu tahay sayna waxaan leenahay qaabtada Allah soo amalka Allah ku shubay ilaahay saasan ka baryeeyay intaas marka aan ka gudbo taariikhda Soomaaliya waynu garanaynaa rag badan baa ka hadlay iima ay hambayn una abwaanina ka hadlay ilaa taariikhda joogay laakiin mid baan daba socdaa waxaan taagnaa 22kii habeenkii hargeysa la saaraya calanka ee timcada lahaa aan sidii ilaahay sarreeyo bansaaro ka nasiib habeenka anigu waan taagnahay jaaliyadda khayradda meesha leeyahay taagnahay soomaali maalintaas yacni waxa ku jiray shucuurteeda iyo dadnimadeeda iyo jacaylkeeda iyo qarannimadeeda
waxay soo gaarsiisay meel wacan maantana waxaynu maraynaa meesha aynu ka daadsanahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inagu toosiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa xaqiiqdii soomaali waxay sharafteedu tahay midnimada waxay sharafteedu tahay quwadeedu tahay midnimada waxay garashadeedu tahay midnimada haddii inta laysu yimaado horta goday noqoto waa la wada hadlaya sabay wada hadlaysaa ama way isafgaran ama way kala tegi waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay isgarabsiiyo in ilaahay isafgarabsiiyo ayaa ilaahay ka baryayaa taasi waa taa marka waxaan horta mid sheeganana mid ogaada caalanka buluugga ah Soomaaliland baa keentay oo dalka keentay oo iyada baa markii hore asaasoo keentay meesha walow niman la yidhaahdo leego hal gabdhood ay ku soo jireen dalka yacni gobonnimada oo u dhintay oo u dagaalamay oo u dhaxay wax walbaba qaar waxaa jiray leegada markii ahaa markay hadlayaan yacni waraaqarrada lagu qabto la yidhi waqadii bay laqangeligeediiba soomaali heerarkaasay soo martay maantana waxaynu taagannahay innagii oo qoysahay inaynu kala qaybsananno ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ina soo wadiyo ilaahay saasaanu ka baryaynaa anigu hadalkii ma badinayo waxaan kaga baxayaa ha midowda soomaali ha israacdo qalbigeeda allah isu nuuro ilaahay qalbiga buuxaha isu mariyo ilaahay saasaan ka baryayaa ilaahu saacata rijaab nooga dhig ilaahay ayuu qalbiga saasaanu kaa baryaynaa allahuma salli calaa sayyidina maxamed aad iyo aad baa umahadsantihin آمين 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 هذا نوع حنقص دوينا يا ملاك محمد بيمالو ملاك محمد ملاك خليف سيدو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بأمد الصومالية رقي هوين انت هل كان اسمه تمد انت قابضة سميسي او هريو مدن عداية دمانتين بوايد السلامي سلام كدب وحان امالينا ان تاريخ الصومالية لغوضة شيكي دمان بسيتهي لكن هدو رق هدلا لي رق كلمة انكم نادم فيعنو مركا انيقا وحان كتر سنايا علن كان ادو جيدان kuma imaan dheedheel iyo ciyaar kumasan imaan calankan wuxuu ku yimid dhiig dad badan ayaa webiyada lagu aasay calankan dartiisa dad badan ayaa dhiigga bacaadka sharambood lagu aasay calankan dartiisa dad badan ayaa mataqaanaa talaaniga uu qaatay uu ka mid yahay malaaq macallin maalimey oo ilaa aangan iyo macallin kabtooli oo ilaa aangan aysan sheegin ولا دولة أي كهذا شيء يسجلون. مركب وحنا لا يهد سومالي تاريخ ده أدي وقدمت هاي وحول بعد عي لباتها دعدي حقدرها دعدي إصدلهم بعد عي مركب أمة الصومالية وحنا لا يهد سوماليا اسمه هرتوي هاي سهليننا سوماليا اسمه هرتوي هاي سهليننا سومالي ما كستو إيه جوكتو ما أنت إلى جيبوتي إلى راس كمبونيت وحا عد إن قولي ولبا أي هاليس كجرت قولي ولبا إن هاليس كجرت بابا ومدان مركز الصومالية وحان الله هذا ما أنتي نبا اسمه هرتوي هاي سهلينينا اسمه هرتوي هاي سهلينينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أداي أن هذا الكهري ويري هاي وعن جعله هاي لو وقف نودمن كتب وحواي بون كاليرنا هدوي لا يرادو أن ركلي ما هنا هذلان دمر كانوا هذلايان أن حسود وادان زهرة عبد الله أن سعاد أن حاوب باشي إيو أن شينو فايلة waxay ku xigaan odayaasha markay noo qatimaan hadda waxaan ku soo dhaweynayaa laba kalmadood chairman Abdul Qadir
waxaan leeyahay ku soo dhawow kadibna waxaan noo soo qatimaya odayaasha Sheekh Salaad marka welcome Mr Chairman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ما أنت هو معلم وين واي وفرحة سومال لنا عيا فرحانين وحال سكويميد يوروب ولا سكويميد لندن يو ميلح كلا عيال سكويميد إن للدبال ديجو حرنمة سوماليا إن علن كان تلياني كان ديجينو أنصارنو علن كان سوماليا أيام أنت لسكويميد أنا هذا ذلك واخد بين تاريخ وكشيكين أنا وهاو هاي عسير إنا أخبراء أخذوا إنا كسعودو فراوي لوزازا ليلو لبرما لوليو نمونتي تتحرنما تتا سوماليا نيو ماني إني كان ديكو بانديرا تشيلينين رانا ماتيستا كل محلة يلا إسر كان ديكو بانديرا يا الصومالي كذا بانديرا يا تلياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام waxaan hadda soo dhaweynaynaa dhammaan odayaasheena hooyooyinka aqoon-yahanada odageeni Sheekh Salaad waxaan leenahay dardaarankaaga iyo ducada nagu soo gabagabee. bismillahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta waxaan soo dhaweynayaa oon ka mahad celinayaa munaasabaddan jaaliyadda cusubkayna keentay oo rag iyo dumarba leh ilaa haddaan dadka laga soo shaqayn lahay suma yimaadeen wacahan wanaagsan jaaliyadda cusubkayna keentay ayaa ilaaha mahadda leh midda labaysa waxaan xuskaynu maanta ku saabsan yahay kii horeeto oo muxuu ahaay 26 juun ayuu daba taagan yahay 26 yaa ku horeysay muxuu ahaay gumaystihii culayska markuu naga degayo calanka maanta la hoos taagan yahay korkayna taagan laga qaatay ayaan mataqaanaa soo dhaweynay waxaan ku xajinnay 22 luuliyo oon taaganahay hadda midu wayga fariin midna waa soo dhaweyn ilaahay baa mahaddale horta marka koobaad culayska naga qaaday ayaa mahadda celinay anigu waxaan soo joogay ururkii la dhihi jiray SYL markii ay u mataqaanaa doonaya xornimada talyaani waa jabee aan ku joogsanno qoryooley dhexdeeda nimaan nafta waa laysku qalaa nimaan nafta quurin qaaruun ma naqdo inan yar baan qoryooley dhexda ku celiha qoryooley dhexdeeda waa laysku qalaa nimaan nafta quurin qaaruun ma naqdo talyaani waa jabee aan ku joogsanno taasna waa soo joog waxaan leeyahay culayskii barkaas ilaahay naga dejiyey maantou naga degaan taagannahay mid waxaan farayaa maamuladaan farriin u farayaa dawladda soomaaliyaan farriin u farayaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayadana farriin baan u farayaa calanka yacni ay ayagu soo curiyeen soo qaadeen Soomaaliya ku soo ekeeyeen yaysan dhayal uga hari camalka haddaayaan ama tuurtuur waay ha iska daayaan oo caqligu ha shaqeeyo camalku yow shaqeyn walaalahay jamhuuriyadda Soomaaliland taasna farriintaas u fara camalku inuusan shaqeyn oo caqligu shaqeeyo oo carada iska iloobaan gadaal u fiirsaan dadkooda iyo dalkooda iyo waxay ahaayeen waxay sameeyeen taasna Soomaaliland u fara gobolada waxaan leeyahay caqligu yaan danaysta daniyaysan shaqeyn caqligu ha shaqeeyo
dalki waa agoon dalka Soomaaliya maanta waa agoon dadka Soomaaliyana waa agoon agoontana shacabka midka weynaa koriye 26 sano ayaan burbur iyo halaag walaal la'aan wehel la'aan tol la'aan xidid la'aan xagaal la'aan aan taaganayo xool la'aan war intaas miyaan sida ku jirnaan dhan noo ah Soomaaliyeed waxaan leenahay agoontii nin baa u soo baxay agoontii rag baa soo baxay ragga soo baxay aan garab siino ragga hasaa korihay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax kale ku darmay waa mahadsan yahay Sheekh Salaad odayaasha dhammaan waa mahadsantihiin maadaama adika dhaqan ahaan ay odayaasha horeeyeen haddana waxaan rabaa inaan ku xijiyo gabdhaha waxaa ugu horeysa Zahra Cabdullaahi oo laba kalmadood noo sheegaysa Zahra Soomaali iyo Sucaad Wadani oo ayadana hal buraanbar noo sheegaysa kadib waxaa ku xiga runtii quruxdan aa u jeedaan iyo banaanbaxan dad badan ka dambeeyay adiga waxaa ka soo qabsateen aakhirkii dadkii mudnaana dadaa waxay u garteen hadiyadana waxaan rabnaa insha Allah bacdal Sucaad Wadani markii ay buraanburkeeda noo soo qatinto inaan halkan ugu yeero gabdhahii kale ee hadiyadda u waday dadkii quruxdan badan sameeyey ee ka dambeeyay hadduu ilaahay hadda waxaan ku soo dhaweynayaa Zahra Cabdullaahi Zahra Soomaali بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaaha horta mahadda leh kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen ama aan ka soo wada qayb galnay waxaa kaloo mahadda iskale ilaahigii noo fududeeyey dhulkaan sidaan u weyn inaan isku aragno oon iskugu nimaanno annagoo ciyaalka annagii wadanno cid naga maqan ma laha waxaa ka sii muhiimsan yacni wixii aan u nimid oo ah oon wada ognahay waa kowda luuliyo ilaahayaa na gaarsiiyey alxamdulilaah ilaahaa na gaarsiiyey alxamdulilaah waxaana ilaahay ka baryeennaa sannadaha soo socdo mid ka sii daran sidaan aan iskugu nimid ka badan inaan iskugu nimaanno walaalayaalow soomaalinimada waa muhiim mar alla markii hees la qaadayo waa wada judboonaynay ama dad waa maaragta waa wada xadraynaynay cid kastaba siday u fahanto marka walaalayaalow kowda luuliya muhiinay noo tahay ilaahaygiina maaragta na wada gaarsiiyey marka aan isku nimaanno aan isjeclaanno waxaa kaloon hambalyada u direennaa oon maaragta u wada direennaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo ugu horeeyaan Soomaalida waxay tiraahdaa mundul ninkii dhisaa ka weyn marka waxaa waaye dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha baarlamaanka intaasoo dhan iyo intii magaca Soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxaan leenahay hambalyo waxaa kaloon u sheegayaa masajkan waa madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha u tahay annagoo halkaan joogno Manchester ayaan sidaan maaragtay Soomaalinimada u muujinay adna waxaan leenahay madaxweynaha annagana naynaasuu leeyahay naynaastiina waa farmaajo maxaa waaye waa jiis guri kasta waa taallaa marka waxaa waaye guri kasta maadaama ay taallo farmaajo Soomaali cadaalad u sameey cadaaladda aa muhiim ah cadaalad haddii aad samaydo cid kastaa ku jeclaaneedo farmaajo cid kastaa jecel waa ku wada jecelnahay Soomaaliya raas Gambooni ilaa raas Casayr waxaa lagaa rabaa inaad muujisid Soomaalinimo sidii lagu doortay waa ogtahay waxaa ugu horeeya maxaa waaye waa sinaan cadaalad haddii la helo oo carruurtaad dhashay hadday afar yihiin haddaad cadaalad samaydo way ku wada jeclaanayaan waa ku jecelnahay mudane dadka kula shaqaynaayo waa inaad good example aad u noqotaa marka waxaan leenahay cadaalad Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin haddana waxaa u gudbinayaa Sucaad Cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم وائد السلامي مناسبة أنت كساقي بشيء أنت كم قنبة الصومالي وين ملك تيجان وائد السلام يا ما شاء الله مركز هذا اللي فرح سيا ما أنت كود لولي أنا أدب على دقننا وعملنا كم مدن مركز هذا الكلام مبدينا أيو مركز نهمبلية ذا دولة يدل الشعب كله أودرها يا إلهي إذن كيس مركز باق بدنا مدرا أيو أنا جا عدك داري حوغاي بليز دولة الصومالية أنا قاعد أتاجر سنة هاي دولة نمان دونينا دولة نمان أنا الدقة مركا هنبليان أدرها يا مدحوينها رئيس الوزراء برلمان رئيس الوزراء مدحوينه فرماجو يقدمي برلمان كتوري محلها برم منستر كنا حسن قير كل هنبليان أدرينا مد الصومالية الملك جوجان ومد الصومالية هالك فرينا أنا ولي قلبي كتعلى واحد هاي من نمو يا نبت قليه ولا نبت قليه هالوجد ده قف كستو موادنا وما أنت نقول حنقضاء وقرن كانوا قاوعكويا marka maxaa leeyahay way loo dilahay dadka maxaa loo dilahay maxaa qaraxyada keenay maxaa dirka keenay ummadda Soomaaliyeed wada hadal bay ku dhameyn kartaa waxa way cid ka tirsanaysa wada hadal ba lagu filay wada hadal baana deeqa laakiin muwaadiniin la ka dilin qof yana la ka dilin qof ka soo la dilay qarankeenu dhabarjab u yahay intaas fariintan diraayo yar aan ka faa'iideysanayo ay tahay كتير يران ماشان كشيء كلهنا واحد هاي دت كانوا ددالو دور كان إصدباقه دت كانوا ددالو دور كان إصدباقه دل كنا ضيعان إيو دت كنا ظروفا دولة نما كنت يقضيه ددالو دت كيجو دن جارة وضعيف نمو ودنيسي مرانو دبدعين ويه ضيح أنجاره إسكودوب نما dadkayga dawlad lagu noqdaa intaas waxa xiga barnaamij yar oo wax weyn ma soo diyaarinay barnaamij yar calanka u tiriyay maadaama aan munaasabada calanka u dabaaldegayno waxay tahay taasina isiyo calankeena sharaftiisa nabiro isiyo sharaftiisa calankeena nabiro عدود الله كهنا على كنا وعدايد عدود الله كهنا على كنا عبير علانكو عيد لا يعيار عيدكم ايمان علانكو عيد لا يعيار عيدكم ايمان عرادي أفضل بهدرتي سعيدك هو سمرين عرادي أفضل بهدرتي سعيدك هو سمرين عرولي عرور عينك سوين عرولي عرور عينك سوين ناهي على كثيرين هيا سوماري جودها على كثيرين هيا سوماري عاي كستابا عدود يعود كعقلي كي كوادا هنتين عدود يعقلي